daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya isfaham hordhac oo laga gaaray shirkii Avazioni ciidamada dawladda oo dagaal kula wareegay koonfurta magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu soo qabtay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab in ka badan 100 qof oo ku dhimatay dagaalka Soomaalida iyo Canfarta dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ka bilowday qorshe ka dhan ah maamulka Jubbaland sidoo kale waxaad daawan doontaan Cumar Filish oo sheegay in saameyn dhaqaale uu ku yeeshay COVID-19 haddii aynu ku bilowno daawadayaal wali waxaa teendhada Avazioni ee magaalada Muqdisho ka socda shirka u dhaxeeya madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo la sheegay in isfaham hordhac laga gaaray qodobada qaar warar la helay waxay sheegayaan in la isku raacay in shirka socda la ballaariyo oo furitaanka ay ka qayb galaan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaashii hore ee dalka ra'iisul wasaarihii hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ay ka doodayaan ajandaha shirka soo socda iyada oo la filayo in heshiis laga gaaro wakiilada beesha caalamka oo soo qaban qaabiyay kulanka ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida in ay shirarka u socda ay heshiis ku gaaraan si doorasho dalka uu aado dhanka kale haddaynu eegno warar naga soo gaarayo deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya dagaal culus ay kula galeen Al-Shabaab deegaano halka hoostaga ciidamo ka tirsan qaybta 12aad oo ka baxay deegaanka Sinadhaqo ayaa waxaa la sheegay in dagaal kooban kadib ay la wareegeen deegaanka Labadole iyo Dhaban Dhunkales oo ku yaala duleedkan koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb halkaas oo Al-Shabaab ay ka soo abaabuli jireen weerarada gaadmada ah saraakiil ka tirsan qaybta 12aad ayaa waxay sheegeen in dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab ay ugu dileen 6 xubnood sidoo kalena ay kala wareegeen sanad ciidan wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidamada dawladda ay wali howlgal kala duwan ay ka wadaan deegaankii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada Dhuusamareeb dhawaan ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya howlgallo ay sameeyeen ay kula wareegeen deegaanka Sinadhaqo ee duleedka magaalada Dhuusamareeb halkaas oo weerar qorsheysan ay ka soo abaabuli jireen Al-Shabaab ciidamo ka tirsan ururka afraad guutada 16aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa sacdihii la soo dhaafay howlgal culus ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgallada oo ahaa kuwa ka dhan ah Al-Shabaab ayaa waxay ciidamada ay ka sameeyeen deegaanka Baladul Amiin Duudami iyo Fuulay oo dhammaantood hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kusimaha taliyaha ururka afraad ahna abaanduulaha ururka laba xidigle Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay sarkaal u qaabilsanaa Al-Shabaab waxa ay ugu yeeraan sakawaadka balse magaciisa uusan shaacin ugu dambeyn abaanduulaha ururka afraad qaybta 16aad laba xidigle Maxamed Cabdulqaadir ayaa sheegay in ciidamada ay howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa deegaanada Shabaab ay halkaasi ka joogaan laga xoreeyo howlgalka ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka sameeyaan Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Sabtidii toddobaadkan Al-Shabaab ay weerar culus ay ku soo qaadeen degmada Awdheegle sidoo kale deegaanka Bariire weerarkaas oo sababay khasaare kala duwan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka beelaha deegaanada Jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda halkaasi war ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu sheegay in odayaasha beelaha deegaanada Jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda halkaasi ay u gudbiyeen wasiirka cabashooyin ku aadan dhismaha dawlad goboleedka Jubbaland sidoo kale warka waxaa lagu sheegay in odayaashii siyaasiyiinta ay sheegeen in aysan ku qanacsaneen guud ahaan maamulka Jubbaland isla markaana ay daneynayaan in loo dhiso maamul wadar ogol ah damaanad qaadi kara nabadgelyada iyo isu heynta wadajirkooda si ay u noqoto Jubbaland loo dhan yahay ugu dambeyn wasiir Mukhtaar ayaa ka dhageystay cabashooyinka ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha deegaanada Jubbaland iyo siyaasiyiin ku helinayay kulankii ay la qaateen wasiirka kulanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaaf xoogan oo u dhaxeeyo madaxda muddadoodu ay dhamaatay iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markan haddaynu eegno maamulka Puntland ayaa sheegay in ay gacantooda ay ku soo celinayaan magaalada Laascaanood oo ka tirsan gobolka Sool iyo magaalada Ceergaawo oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka arimaso Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaman Cad oo su'aalo lagu weydiinayay barkulanka Club House ayaa sheegay inay wadaan qorshihii ugu dambeeyay oo ay kula wareegayaan magaalooyinkaas gobolka Sanaag si dhameystiran ayuu ugu jiraa gacanta Puntland marka laga reebo
degmada ceergaabona hoosheeda waa socotaa oo dhowaan ayay dhammaanaysaa sidoo kale laasacaanoodna iyadoo aan howlgal badan laga marin ayay dhammaanaysaa oo waa socotaa ayuu yidhi wasiir dhaban cad sidoo kale wasiirka uu ka hadlayay shirka tendhada afasiyooni ayaa sheegay in shirkaasi beesha caalamka ay go-aankeeda ay ahayd in halkaasi la isugu yimaado lana rajeynayo inay ka soo baxaan natiijooyin fiican hadalka ka soo yaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guur isla markaana la filayo in dhowaan doorasho dalka ay ka dhacdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa barnaamijka la tashiga dadweynaha kala qayb galay waxgaradka degmada Xamar Jajab iyo sidoo kale Xamar Weyne kaas oo lagu qabtay xarunta degmada Xamar Jajab waxgaradka labada degmo ayaa u gudbiyay gudoomiyaha baahiyahooda iyadoo diiradda lagu saaray dhismaha wadooyinka burbursan ee ku yaala degmooyinkooda waxbarashada caafimaadka horumarinta dhalinyarada haweenka iyo maareynta biyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa sheegay in ka soo labada degmo in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir wadooyinkooda qaar ay biyo yaalaan taasina ay tahay dhibaato haysata shacabka gobolka Banaadir isla markaana wax laga qaban doono sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay inuu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 isla markaana uu hoos u dhigay dhaqaalihii uu shacabka u ka heli jiray maamulka degmada ugu dambeynna haddaynu eegno maamulka deegaanka Soomaalida iyo maamulka Canfarta ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka ku yaala gobolka City ee dowladdeegaanka Soomaalida kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo aad u far badan wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Cali Bedel ayaa guulo ka sheegtay dagaalka isagoo sheegay in ay maleeshiyaadka Canfarta ka dileen 25 ruux kadib markii ay soo weerareen wasiirka oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida iyaga oo difaacaya shacabka ay gaareen guulo waaweyn howlgalkana uu sii socon doono dhinaca kale taliye ku-xigeenka booliiska Canfarta Axmed Xumed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhinteen ilaa iyo 100 askari oo labada dhinac ah waxa uuna ku eedeeyay in ciidamada dowladdeegaanka Soomaalida ay weerar ay ku soo qaadeen ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida waxay weerareen aaga horog iyo gawaani iyagoo adeegsanaya hub culus oo ay ka mid yihiin qoryaha darandooriga u dhaca iyo bombooyinka caruur iyo haween ayaa la dilay iyagoo hurda ayuu yiri Axmed wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo deegaanada lagu dagaalamay ee galbeedka Somali City ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi laga dareemay xiisad dagaal oo u dhaxaysa dhinacyadii dagaalamay wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga inta daawadayaal